weyn oo lagu magacaabo Jaamicu Tooba. Waxaa loogu magac daray masjidka Jaamicu Tooba. Meesha uu masjidka ku yaalo ayaa waxay ahaan jirtay meel kalaab ah oo lagu sameeyo xumaanta nooc walba. Waxaa iibsaday mid ka mid ah boqorradii jiray sanadkii 7 ee Hijriga. Waa uuna dumiyey kalaabkii, waxa uuna ka dhisay masjid weyn. Masjidka waxaa joogay nin sheekh ah oo caalim weyn ah. Magaciisa waxa uu ahaa Sheikh Saliim Suyuudi. Dadka xaafadda waxay ahaayeen kuwa ku kalsoon sheekha, waxayna ula soo noqon jireen wax walba oo ku saabsan diintooda iyo adduunyadooda. Waxa uu ahaa nin isku kalsoon oo og in uu sharaf ku dhex leeyahay bulshadiisa. Waxa uu ahaa mid degan qol ka mid ah masjidka. Waxaa soo martay sheekha 2 maalin oo uusan wax cunin, mana uusan helin cid wax siisa, mana ahayn mid haystay lacag uu wax ku soo iibsado. Maalintii 3aad, salaadii maqrib kadib, sheekhii waxa uu dareemay inay geeridu u soo dhawaatay. Waxa uu ku fikiray, maxaad samaysaa? Waxa uu istusay inta uu dhiman lahaa inay u bannaan tahay in uu cuno waxa dhintay ama uu wax hado. Masjidka waxa uu ku ag yaalay xaafado qadiimi ah. Guryahana waxay ahaayeen guryo isku dhow. Satuuxyadana waxay ahaayeen kuwa isla siman. Sheekhii habeen ayaa waxa uu soo koray satuuxa masaajidka. Markii uu soo koray satuuxii, waxa uu fiiriyey gurigii uu u dhici lahaa. Waxa uu arkay mid ka mid ah guryaha. Waxa ay indhihiisa qabteen haween fara badan. Waxa uu ka leexiyey indhihiisa. Waxa uu fiiriyey guri kale oo u dhow. Waxa u soo caraftay cuntadii ay karsanayeen reerkaas. Baahida haysa darteed, caraftii cuntada waxay u noqotay magnad ama birqabato jiidanaysa. Waxa uu ka booday satuuxii. Waxa uuna lugta saartay daaqadii guriga reerka. Waxa uuna galay jikadii. Waxa uu daboolka ka qaaday digsigii. Waxa uuna ka arkay 2 digaag oo shiilan. Waxa uu soo baxsaday mid ka mid ah digaaggii. Waxa uuna ka goostay gobol yar. Markii uu laqay, waxaa celiyey caqligiisa iyo diintiisa. Waxa uuna is yiri, anigu waxaan ahay qof magaaladan u soo doontay cilmi, kuna ah qariib. Mana ii sugnaanin in aan soo galo guryaha oo aan ka xado cuntadooda. Arrintii uu sameeyey ayaa ka weynaatay. Waa uuna shalayay. Allah ayuuna dambi dhaaf weydiistay. Waxa uuna iska dhigay digaaggii. Waxa uuna ku noqday meeshii uu ka imaaday. Sheekhii waxa uu ku soo noqday masjidka. Waxa uuna soo xaadiray xalaqadii uu imaamka masjidka akhrinayay. Baahida haysa aawadeed, cashirka uu maqlayo ma ahayn mid fahmi kara. Markii uu dhammaaday darsigii oo ay dadkiina kala tageen, waxaa imaatay haweeney asturan. Waxay u sheegtay imaamkii hadal uusan maqlaynin Saliim. Imaamkii waxa uu fiiriyey geesihiisa, mana uusan arkin qof aan Saliim ahayn. Waa uuna u yeeray. Waxa uuna ku dhahay, ma guursatay? Saliim waxa uu yiri, maya. Imaamkii waxa uu ku yiri, ma doonaysaa inaad guursato? Saliim waxa uu yiri, sheekho, wallaahi ma haysto wax yar oo lacag ah. Sidee ayaan ku guursadaa? Imaamkii waxa uu ku yiri, haweeneydan waxay ii sheegtay in ninkeedii uu geeriyooday, magaaladana ay qariib ku tahay. Adduunka oo dhan kuma haysato hal adeer oo faqiir haddana waayeel ah mooyee. Waxay nala timi halkan, waana ka masjidka safkiisa hore fadhiya. Waxa ayna dhaxashay daartii idinkeeda iyo maalkiisaba. Waxa ayna jeceshahay in hesho nin ku guursanaya sunnadii rasuulka, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee.
si aysan nolosha kali ugu noqonin oo aysan u damcin dadka xunxun. Ma doonaysaa inaad guursato? Saliim waxa uu yidhi haa. Waxa uu weydiiyey haweeneydii, ma aqbalaysaa in Saliim uu noqdo ninkaaga? Waxa ay ku jawaabtay haa. Waxa uu u wacay adeerkeeda, waxa uuna u wacay 2 markhaati oo kale. Waa uuna isku nikaaxiyey. Imaamkiina waxa uu ka dhiibay meherkii. Haweeneydii waxay u soo kaxaysatay gurigeeda. Markii ay soo galeen, waxa ay fayday wejigeeda. Waxa uu arkay haweeney dhalinyaro ah oo aad u qurux badan. Waxa uu arkay gurigii inuu yahay gurigii ugu soo dhacay. Waxay ku dhahday, wax miyaad cunaysaa? Waxa uu ku jawaabay haa. Waxa ay daboolka ka fayday digsigii. Waxayna aragtay digaaggii. Waa ayna yaabtay. Waxayna dhahday, yaa goostay digaagan? Sheekh Saliim waa uu ilmeeyey. Waxa uuna ugu sheekeeyey qisadii. Waxayna ku dhahday, tan waa mirihii wanaaggii aad samaysay. Waxaad ka tagtay digaaggii xaaraanta ahaa. Alla waxa uu ku siiyey gurigii oo dhan iyo qoftii iska lahayd, iyaga oo xalaal ku ah. ومن يتق الله